السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaal akhyaarta soo dhawaada maanta insha Allah taala waxaan rabnaa inaan ka discuss gareyno aan ka wada hadalno arrin ka soo kordhay xaggi immigrationka oo ku saabsan sharci ay rabaan actually hindisa sharciyeed ay rabaan in ay soo gudbiyaan qolyahan USCIS oo ah United States Citizenship and Immigration Services. qolyahaas yaa waxa ay soo jeedinayaan sharci cusub oo ay rabaan in ay kaga faa'iideystaan dekreetooyinkii uu saxiixay madaxweynaha Trump ee xagga immigrationka mid ka mid ah ay rabaan inay kaga faa'iideystaan. So barnaamijkan wuxuu daaran yahay sharcigaas isaga ah waxa ay bixinayaan 60 maalin 60 days 60 maalin waxay rabaan in ay hadduu ilaahay idmo ay maaragtay ay ku ogaadaan public comments bay ururinayaan aragtida dadweynaha dalkan Mareykanka ah ay ururinayaan oo ay rabaan inay ku ogaadaan dadka meesha ay ka taagan yihiin arrinkan immigrationka ah. arrinkan marka ay rabaan inay sameeyaan waxa waaye ujeedkooda dhan waxa uu yahay in qofka dalka ku cusub oo raba in uu apply gareeyo hadeer asylum oo kale oo isdhiibo qofka marka hore haystay I-94ka oo rabo ama warqad yar oo dalka Mareykanka markaa soo gashaba lagu siinayo sharci ahaanta sharciga yar oo rabo inuu u bedesho green card ama permanent residency waxa ay yiraahdaan iyo qofka rabo in uu ka guuro green cardkii oo permanent residency ka guuro oo rabo in uu u guuro applicationka buuxsado uu ku noqon lahaa citizen ama dhalashada uu ku qaadan lahaa. marka sharcigan hadda ay soo propose gareynayaan waa hindisa sharciyeed proposal ah oo hadda cusub. sharcigaas waxa waaye in ay qofka marka applicationka uu buuxinayo uu ku soo daro social mediahiisa Facebookkaaga, Instagramkaaga, TikTokkaaga of course iyo Twitterkaagaba inay helaan. They want to get all social media handles waxa la yiraahdo qof walba social mediahiisa in ay helaan bay rabaan si applicationka ay ugu daraan. arrinkaas marka hore ma jiri jirin markii hore arrin noocaas ah oo dadka lama weydiin jirin social mediahiisa laakiin hadda waxay rabaan inay ku soo kordhiyaan. sheekadana waxay ka keeneen dekreeto uu saxiixay Trump day one maalinkii la dhaariyayba dekreetadaas oo ahayd in Mareykanka laga ilaaliyo dadka fikirka xun wata sida iyaga ay sheegeen dalkan duulaanka ku ah oo argagixisada iyo waxaas la shaqeynayo oo raba in ay arrimo falal argagixiso ka geystaan dalka Mareykanka. marka iyaga oo dekreetadaas ka duulayo bay waxay sameeyeen review bay waxay ku sameeyeen go'aamadii marka hore applicationka waxay lagu qori jiray oo applicationskaas oo adjustmentiga lagu sameynayo citizenshipka iyo waxaas lagu sameynayo. so marka hore waxay sameeyeen waxay fiiriyeen review dib u fiirin eegid ayay ku sameeyeen waxyaabihii applicationkaas ku qoraa. so su'aalo bay ahaayeen markii hore lacagyo ku nooleed maaragtay qolyo argagixisa iyo waxaas ma la shaqaysay qolyo bahalkii howlo noocaas ay u fara badnaayeen. su'aalo ah affiliation ma la leedahay qolyo Mareykanka iska soo horjeedaan oo ma la xiriirtaa su'aalahaas marka iyo no ba iska ahayd. laakiin hadda waxay rabaan in hataa qofka asylumka buuxinayo uu ku darsado lagu soo daro social media handleskiisa Facebookiisa, Instagramkiisa, Twitterkiisa wax dhan inay ogaadaan bay rabaan because waxay rabaan inay ay dib intay ugu noqdaan historygaaga ay fiiriyaan. so haddaad dalka sii joogtay oo aad asylum apply garaysay iyo haddii aad hadda derbiga iska boodayso isdhiibayso labadaba waxa ay sameynayaan
they don't care meesha joogto laakiin applicationkaaga hadaa buuxsanayso waxay rabaan inay ku soo daraan so si ay sharci uga dhigaan marka waa in ay sameeyaan waxa la yiraahdo proposal which hadda ay sameynayaan proposalkaas hadda ay sameynayaan waxa waaye 60 days commenty baa laga bixinaya dadka Amerikaanka ah hata you don't have to be American in a comment dhiibato waxa ay kula tahay so 60 days ay rabaan in ay ku buuxiyaan waxaa jiro website la dhaho federal registrar baa la dhahaa oo commentska ay dowladda ka urursanayso so qof walbo shalay ayuu furmay 59 days ka dhiman sharciga markay ay propose gareynayaan waxa waaye in ay u baahan yihiin in qof walbo oo application soo buuxsada waliba intan kaliya kuma eka qolyaha waxaa jiro viisaha let's say hadda oo kale cunug oday inta joogay ama maamo inta joogtay baa cunugeeda waxay u buuxisay visa in ay ku keento dalkan Mareykanka qofka markii waalidkiis u buuxiyo oo kale oo uu rabo waalidka inuu keeno waxa loo buuxiyaa waxa la soo siiyaa xagga visa laga soo siiyaa marka qofkaas viisaha loo dalbay oo ama xaaska oo kale hadaa u dirto ama xaaska ay odayga u dirto waxa la buuxiyaa visa so viisahaas marka intaan lagu siinin waxay rabaan inay ogaadaan maadaama USCIS ay tahay qolyaha ugu weyn oo handle gareeya citizenshipka and immigration serviceska qolyaha handle gareeya oo mas'uuliyadeeda ay dusha ka saaran tahay ay tahay iyadii ayaana wada sharcigan hadeer in ay gudbiso marka maadaama iyaga ay viisaha bixiyaan hata inkastoo viisaha uu bixiyo actually ay bixiso ayaga CIS ka soo marta application ka hoose baa soo mara form 1I31 ka ayaa soo mara laakiin viisaha state departmentiga ayaa bixiso hata state departmentiga waxaa la rabaa in lagu qasbo in ay qofka viisaha applicationka in uu soo raaciyo applicationka viisaha in uu soo raaciyo social media handleskiisa bay rabaan arrinkaana sidaan idin sheegay waxay kaga duulayaan one of the decretooyinkii uu saxiixay ama executive orderskii uu saxiixay madaxweyne Trump ayay u soo qaateen waxay ku doodayaan oo USCIS ay ku doodaysaa qolyahan applicationka buuxiya waxay ku doodayaan a day one executive order issued by Trump oo ahayd protecting the United States from foreign terrorists and other national security and public threats meelahii uu ku dhaartay bay ahayd madaxweynaha in uu ka difaaco dalka Mareykanka qolyaha fikirka xun wata oo la imaanaya dalkan sida asaga hadalka u dhigay weeye iyo national securityga dalkan Mareykanka in la waardiyeeyo sidoo kale public safety threats dadka shacabka ah ee publica ah dalkan ku nool safetygooda in la ilaaliyo marka taa anaga iyadoo ka duulayno baa waxaan rabnaa bay yiraahdeen in qof walbo aan oo application soo buuxinayo si kastaba ha lagu keenay ama visa ha lagu keeno hata qaxootiyada waa la sheegayaan hata qaxootiyada maadaama qaxootiyada iyada ay raangarayso oo applicationka markaa buuxiso USCIS ay tahay qolyaha wax kala kicinayo oo Mareykanka dhanba loo soo gudbiyo warqadahaas waxay rabaan in ay informationkaas ay helaan informationka marka waxaa hadda ka dhiman 59 days because shalay ayay fureen sharcigan oo ay rabeen in ay dadka Amerikaanka ah public commentigooda ay ku ogaadaan so haddii aan fiirino ama aan fiiriyaba National Registrar website kooda hadda waa soo eegay waxaa ii muuqata in dadka actually Amerikaanka ah badankood ay ka soo horjeedaan commenteska ay bixinayaanna markaan fiiriyay view posted commentska ay bixinayaan dadka Mareykanka ah badankood way ka soo horjeedaan in qofka social mediahiisa la weydiiyo dadka kaliya ma aha hata Mexico baa comment ka dhiibatay oo public ah oo ay dowladda Mexico unrelated comment baa la yiri laakiin qofkan hadda oo kale dadka taageersan aad bay u yaraayeen so haddii ay heli waayaan comments ku filan
hadday heli waayaan qofkan hadda wuxuu qoray I'm writing against this proposed changegan waan ka soo horjeedaa that will simply weaponize surveillance against poor immigrants dadka masaakiinta ah oo qaxootiga ah ba waxay ku noqonaysaa bay yiraahdeen in dawladda ay ku taagsato bay yiraahdeen laakiin isaga wuxuu ku doodayaa Donald Trump wuxuu soo propose gareeyay madaxweynaha maalinkii dhaweyto oo ahayd gold cardka green cardka dadka uu ka gadaayay qofkii lacagtaas bixiyo lama jeegareynayo laakiin dadka masaakiinta oo qaxootiga ah bay rabaan in ay jeegareeyaan mana arko dhahay sida dadka social media-hooda in la soo urursado oo dawladda ay gacanta ku dhigto information-kooda sida ay u caawinayso ima muuqato dhahay sida ay u caawinayso nabadgelyada dalkan Mareykanka so qofkaas commentigaas ayuu ka qoray dadka badankood anonymous bay iska dhigeen oo isqariyeen macnaha magacooda laakiin comment fara badan ayay ka qorayaan oo ay kaga soo horjeedaan proposalkan 60 bari baa ka dhiman haddii ay helaan dad badan oo ku taageersan oo arrinkan ku taageersan hadday helaan way dhaqan gelinayaan haddii ay waayaan dad badan oo ku taageersanna oo ayaga oo fiirinayo commentiga waa dal iska dimuqraadi ah oo commentiga uu micno samaynayo qofka citizenka ah oo dalka u dhashay fikirkiisa uu micno leeyahay marka haddii ay ka helaan commentiyo fara badan oo taageersan way qaadanayaan haddii commentiyo fara badan oo taageersan sharcigana ay waayaanna way ka joogayaan marka sharcigaas ay soo wadaan dadka waxaan marka kula talinayaa dadka hadda already darbiga ka soo booday oo isdiibay in social media-hooda ay controlaan because waa laga rabi doonaa hadhow in aad soo gudbiso social media-haaga magacaaga aad ku joogto iyo social media handle-kaaga waa laga rabi doonaa so haddaad mar dhow isdhiibtay oo aad sharci sugayso oo maxkamad iyo wax aad leedahay after 60 days waxay u badan doontaa in uu u shaqeeyo sharciga maadaama ay waafajinayaan sida ay sheegeen madaxweynaha dalka Mareykanka digreetadii ka soo baxday ee ahayd in dalka Mareykanka dadka shacabkeeda amnigeeda la ilaaliyo amnigooda actually public safety-gooda in la dadkan isu soo dhiibaayo iyo dadkan meelaha kale ka imaanayo oo dalalka kale ka imaanayo oo in iyagana ilgooniya loo yeesho oo vetting lagu sameeyo waxa la yiraahdo vetting baa la yiraahdaa so vetting in lagu sameeyo oo dadkaas baaritaan lagu sameeyo dheeraada ayay raadinayaan marka be careful haddii aad cusub tahay oo dalka Mareykanka aad ku cusub tahay oo hadda aad buuxsatay asylum-kii ama aad buuxsatay magangelya doonkii waxyaabaha aad ku qorayso social media-haaga be careful because way ku weydiinayaan waxayna uga dhigi karaan case-kaaga in la dhinay gareeyo oo lagu diido maxkamadda ay diido ayaan kaaga dhigi karaa mahadsantihiin waa salaam haya intaas ayaan rabaa inaan ka dabageeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh